Somali Motivation Podcast. Kaltuun aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa Somali Motivation Podcast. waa mar labaadkii aad ka soo qayb qaadato. waxaad ahayd dadkii ugu horreeyeen ku bilaabay podcast-ka. mahad gaaraan oo kuu fidinaya kusoo dhawow mar labaad. waad mahadsantahay walaal istaahil. waxaan ku faraxsanahay inaan soo noqday, waan sugayey, waanan iman doonaa marar badan. waa run insha allah bidnillahi kariim. barnaamijka adiga ku gaaro su-aalo gaaro lagugu weydiinaya soo socda insha allah oo aan dhalinyarada la wadaagi doono waqtigeeda. hase yeeshee maanta waxaan ka hadlaynaa domestic abuse-ka amba xadgudubka ka dhex dhaca qoyska oo inta badan aan ku eegnay maanta labada qof ee xiriir ka dhexeeya amba hooyada iyo aabaha qoyska xadgudubka dhex mara. haddii aan intaynaan kelmadda u sharaxin dadka, Kaltuun waxaa tahay qof mataqaana qiimo gaara kula dhalinyarada ku degan UK iyo dadka mataqaana ku xidhan podcast iyo kuwa adiga gaarka kugu xidhan role modelka u tahay, adigoo ah qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee madoowa ee xijaaban ee dumar ah kasoo baxa xildhibaanada Sheffield oo kana mid ah guddida qoyska iyo dhalinyarada, chairman oo ah guddiga wax ka bedelka magaalada aad ka soo baxday. si dadka isku bari lahaa dad wax yar u sheegto dhalinyarada inay dhegeysanaysa ama dadkiina dhegeysanayo dhanba. marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waxaa la dhahdaa Kaltuun Baanday ayaa qaar badan dadkiina ii taqaanaan. waxaan ku dhashay Hargeysa, waddankan Ingiriiskana waxaan joogay adigu sanadkii 33 years baan joogay, 30 sano. marka waxaan jeclay horta inaan dadka wax qabta bulshadooda sidaadan oo kale wax u soo bandhiga ayaan aad u dooriya. dhalinyaradana aad baan isugu wanaagsannahay, aad baan ola jeclahay inamiyo hablaba meel kastoo joogaan horta salaan inaan siiyo, especially dadka yaryar oo aan had iyo goor jeclahay inaan caawiyo on support gareeyo, iyo hooyooyinka especially hooyooyinka single motherada ana waan jeclahay inaan ogaado hawlahooda iyo wixii ay doonayaan inaan u qabto. Sheffield waxaa soo degay 17 sano ka hor, intii ka horreysayna reer London baan ahaa, marka si gaara waan usoo salaamaya qolooyinkii reer London. waa mahadsantahay Kaltuun. haddii aan ka hadalno mawduuceena maanta, waxaan maqalnaa domestic abuse, aniguna in badan baan ka hadlay. haddaba sidiisaba haddii loogu noqo domestic abuse oo maxaa tahay, goormuu dhacaa, siduu u eg yahay, bal maxaad ku sharaxdaa haddii aad soo koobto? horta domestic abuse way adag tahay marka la eego dhaqamo badan oo dhaqankeenu ka mid yahay, dhaqamo kala wadamo kala inaguna naguma koobna sida ay dadku marka hore u gartaan. domestic abuse-kana waxaan doonaynaa horta mid looga ogaado in aanay ahayn nin gabadh waxyeelaynaya ay dhinac kalena noqon karto, taasoo midna ay tahay waxaa la yidhahdo cohesive control oo ah qofka in la control gareeyo oo dee la xukumo, ama xagga kharashka, ama la bahdilid hadal u badan, ama psychologically marka la leeyahay qofkaas marka la bahdilayo wax yeelaynaysa. midna waa mid dilma ah oo nabro muuqanayaan oo dhibaatooyin ay kasoo gaadhayaan qofkii, oo nabrahaasna aanu qofkii lamaayo dee caawimo doonto aan la garanaynin. marka la leeyahay domestic abuse English ahaan ayuun baynu u naqaanaa, sidii kale horta anaga Soomaali ma odhan karayo waan ku garanaya, laakiin abuse-kii waynu garanaynaa, qof la cadaadinayo ama qof la dhibaataynayo ama qof gacan loo qaadayo ama afka laga caayayo, laakiin labada qof ay wada deganin iyaga iska yaqaana dadka kale oo dhan. marka qofku wuxuu baranayaa waxa qofka ka xanaajiya, waxa qofka bahdila, waxa qofka hoosu dhiga, waxa qofka ka warwariya. ninka hooyo kale ama aabbo kale dhibaataysanay waxa laga yaabaa in carruurtiisu ay naftiisa marka la eego aad uga importansan tahay, uga muhiimsan tahay. qofkaas marka hagee goor carruurtu waxyeelaynaya ama dharbaaxaya ama waxyeelaya suu qofkan kale u murugoodo. waxyaabo badan oo caynkaas waxay keenaan depressionka ama murugada gaarka ah ee mental illnesska ama cudurrada maskaxda keenta. marka maaha wax easy ah oo dee maaragtay markiiba qofkii oo dhan iyo domestic abuse waxa weeyaan dakhar madaxa kaaga yaal, yani wax saas oo kale ah ma noqon karto.
waanay adag tahay markay waxyaabo badan lagu dabaqay oo ma aha diinteena ee dhaqanka ku saabsan way adag tahay sida dadka qaar ay u soo baxaan ay uga hadlaan taasina dhib ma leh haddii uu qofku uu garanayo meelaha uu caawimo ka doonan karo marka kulli waxyaabo badan aan ka soo qaadnaynaa hadhow filaysa domestic abuse-ka amba xadgudubka qoyska oo noocyo fara badan la sida aad ka dhawaajisay marka laga hadlay waxa laga hadlaa marka qurbaa la yimaado ama dadka qurbaa jooga dadka wadankii jooga waxa laga yaabaa gabadha iyadoo lasoo garaacay oo gacan loo geystay oo mataqaanaa afkii iyo adinkii dhinac walba laga dhibaateeyey in lagu celiyo oo haddana lagu celiyo oo haddana lagu celiyo oo marka dambe istiraahada iska joog taana looma arko maskaxda dadku ma soo dhacayso waa abuse waxa laga yaabaa inay gabadh soo dudo waa la celiyaa dhaqankeena ay caadi ka tahay waa tusaale ayay iga tahay laakiin ma aaminsan tahay inuu waddankeeni ka dhaco mise waxaad u malaynaysaa inay xadgudub yimaada marka dadku cidlo isla tagaan oo ay wadamo qalaa tagaan horta wax aan waddankeeni ka dhicin oo wadamada kale ka dhaca ma jiro marka runta la isugu yimaado marka waqtiyadii hore la eego iyo marka imika la eego marka waqtiyadii hore la eego gabadha iyada oo lasoo dilay oo lasoo dhibaateeyey baa inta xoola la raaciyo la celin jiray marka taasoo kale waxay dee wayaashin ay nooga sheekeeyaan inuu imika ka dhaco oo uu dhibaatooyinka qoysku ka dhacaan dee taasi ma qarsoona oo way dhacdaa ama ha ahaato Soomaaliya oo dhan ama hata Somaliland ama Djibouti ama wadamada maartay inaga more close ka inuga ah iyo kuwa kale ee diinta maxaa sheer gareeyay iyaguna inoo dhow waa global marka lagu leeyahay waa global crisis ama waa global disease waa taas waa waxay tahay oo wax global ah oo adduunka la qaybsado marka ma oran karno waddankeena kama dhaco waanu ka dhacaa tacadiyada dumarka soo gaara kulli way jira gruubo badan oo ka shaqeeya wadankii oo arrimaha ka shaqeeya tacadiyada dumarka soo gaaray ka mid tahay waxa weeyaan intaanad xuquuqdii ama aanad codkaagii aan lagu doonaynin ama waalid ama reerkiina ku doonan sheeko wax walbana waa qabiil ku xidhan marka weligeedna ku xidhnaa laakiin sidii hore dadka ay u dhaqmi jireen iyo waxyaabo badan baa iska bedelay waxyaabo badan oo waxa jira dagaaladii kadib iyo dib xorowgii iyo maaragtay iyo wadanka dib u dhisidiisii iyaguna lay barbar yimid baa jira oo maxaa dhahday ay xoola la'aantu keento shaqo la'aantu keento dhibaato badan ay keentana way jiraan kulliyo halkan imika UK aan joogno iyo iskuma compare garaynaya halkan laakiin kulli waxyaabo badan ay iskaga mid yihiin waxa ka mid ah shaqo la'aanta waxa ka mid ah markuu qofka reerkii u maqan yahay haddana waxba haynin oo kale inuu dumarkii carruurtii ka jaro ama gabadhii ka jaro ama gabadhii ay fahmi weydo ama maaragtay halka breakdownka uu ka dhaco ayuunbaa keenta waxyaabaha qaar waxana domestic violence qaarna waxa weeyaan qof narcissist ah oo sida beri maalintii dhaweyto programkeeda uga hadashay oo kale isagu markiisa horeba abuse-kaas uu kala yimid meel kale reerkiisii gabadh hadday nin tahayba markaynu sidan u hadlayno badan dumar bay u badan tahay inay dhibta ku dhacdo laakiin ragguna kama maqna iyaga ku dhowday dhibaatada soo gaadhay dhibaatada ama wadankii waxaad weydiisay in wadankii ka dhaco of course wuu ka dhacayaa raggii ma hadlan karaan qaar horta hadday iyaga ku dhacayaan taasna waynu ka hadli doonaa waan u malaynaa xagga gender balance-ka domestic violence-ka iyo domestic abuse marka wadanka aan in yar halkaa yara dhigan oon kusoo laabanayna wadankan aad degan tahay gaar ahaan magaalada xildhibaanka ka tahay ma kusoo maran cases ka hadlaya abuse-ka amba xadgudubka qoyska intaysa tiradoodu leeg tahay ayaad is leedahay inta adiga kusoo marta shakhsiyan walaal horta waxyaabaha had iyo goor ku saabsan qoysku waa waxay dhahna sirta ama waa confidential marka had iyo goor waxaan anigu weydiistaa haddii aan support garaynayo agenciyada waxaan leedahay ama hay'adaha sida wadankii uga naqaanaba iyo councilka iyagaba in ay jiraan group ka shaqeynaya keiskaas oo aanay keiskaa lasii wada sheer garaynayn way jiraan marka qaar badan oo dee soo maray oo ama gacan ahaato mise kalaba ha ahaatee kumana koobna dee dadkan afka ku wada hadallo soomaaliga waxa weeyaan waa magaaladan dhan
dee intay weliba xaafadaha kale aan xaafadeeda ahayn xitaa waa laygala soo xidhiidhaa marka waxa weeyaan markan aan eego number ahaan way badan yihiin 3 sannadood inta sanadka afraad baa ii socda waqtigii noogu darnaa laakiin wuxuu ahaa waqtigii covidka lockdownkii ayaa noogu darnaa runtii waayo waqtigaasi dadkii kala maqnaan jiray shaqada ku kala maqnaan jiray iskuulka jaamacadaha ayaa gurigii wada degay dad dhalinyaro oon caruur bay soo hayninoo berdhowtii iskursaday oo meedhan baa meel isugu soo xidhmay dadkii qofbu ka xanaajinaya adigu waxyaaba badan horena waxaan maleynaa TV Somaliland aan markaga hadalnay aniga iyo inan kale marka waqtigaas horta noogu badnaa haddaanu ka hadalno magaalo ahaan numberku markuu uu gaaray ilaa xad xitaa dowladda Ingiriisku waxay bixisay funding ay council walba waxay siisay caawimo kharash si ay uga hortagaan ama u caawiyaan kuwaas dadkaasoo badankooda ay tahay inaad ka rarto halkay joogaan si aad naftooda u badbaadiso ama u kala badbaadiso familigaas marka horta kulley hawlo badan xaggan aan joogo way ka socdaan laakiin haddana qoshiye waa kolba case baa noo soo dhacaya caseska badanka qaarna waxay ku xidhan yihiin caruur yar baa ku xidhan dowladna agenciyadii kale caruurta la shaqaynayay baa markaana kasoo qayb galaya iyaguna dadka soo fadhiisanaya miiskaas su'aal baa soo wata laakiin midda markii maskaxeeda kusoo dhacday markaad ka dhawaajisay caruurta ma la odhan karaa abiyuusku wuxuu qayb weyn ka yahay amba in xadgudubka qoyska ka dhex dhaca wuxuu qayb weyn ka yahay sababaha loo qaato caruurta in waddankaad degan tahay gaar ahaan caruurta Soomaalida haddaan si gaar uga hadalno walaalaha horta wadamadan dabadaha marka la eego haddii ay tahay markaynu sidan oo kale u waramayno kulley in yaro pocket oo Soomaaliya mooyne inta kale dee waa dadkii kale wadankan lahaa iyo dad kaloo badan dabadaha marka la eego marka ilmo yar iskuulka for example iskuulka kale markuu ilmihii yimaado ilmihii oonu feednayn ilmihii uu baqanayo waxyaabo badan oo iskuullada xagga safeguardinka ama badbaadada caruurta eegaan baa jira marka ilmaha dee guri hooyo iyo aabbo ka soo baxay degan oo maxaa la yidhahdaa maxaa la odhan jiray deganaanshiye leh qofka ka soo baxay ilmaha kasoo baxay waad garanaysaa marka waxyaabaha badanee horta badanka ay eegaan waxa weeye ilmaha waxyaabaha yeelayso marka la arko ilmaha aabihii iyo hooyadii oo ama mid la dilayo ama mid la bahdilayo ilmahaas wuxuu ku korayaa isagu inuu naftiisa qudhiisa aanay caadi ahaanin oo dee marka iskuulka yimaado ama dagaalamo ama ilmaha qof dadka qaniino hadduu yar yahay ama qof xagto ama waxyaabo badan baa kiciya oo lagu gartaa marka dadka safeguardinka sameeyo waxyaabo badan oo ay ku gartaan baa science lagu gartaa jira waanay dhacdaa oo way caruurta siday u saamaysaa waxa weeye si qeyr alxada sababtaa iyagu caruurta weli way yaryihiin waa resilient baa la yidhahdaa caruurta way la qabsadaan kolba conditionkay ku jiraan conditionka xun hadday ku jiraan way la qabsanayaan taasoo keeni karta hadhowto noloshooda inay ama iyagu ay noqdaan kuwii la abuse garaynaya ama iyagu qudhooda abuse gareeyaan marka hagee goor marka caruurta la qaadayo meelaha qaar waxay ku xidhan tahay the case by case laakiin waxay ku xidhan tahay in ilmaha laga badbaadiyo in futurekiisa aanu ama ku dambaynin wax isaga naftiisa oo iyada nafteeda wax la yeeleeyo ama dee inaanay noloshiisa lifekiisa ka xumaan marka way saamaysaa walaal caruurta wax laga xumaado xarajaynaya inay in hooyooyinka inta badan hooyooyinku oo ah kuwa aad moodo inta badan mar walba inta badan hooyooyinka ayaa ah kuwa xambaarsan mas-uuliyadda caruurta marka qurbaha la eego hooyooyin keligoodiina way joogaan waxaa dhici karta hooyadii inay ka baqato inay mataqaanaa soo bandhigto dhibaato guriga ka jirto oo ay xambaarsanaato iyadoo isla wax astur laakiin laga yaabo inay caafimaadkeeda iyo caruurteeda caafimaadkoodii iyo mataqaanaa ay galaafato iyadoo isla wax yar mataqaanaa ay qari marka waxaan rajaynayaa hooyooyin badan inay dhaga u yeeshaan oo mataqaanaa intay wax asturayaan ay waxay luminayaan ay ka runtii ka badan tahay arrinta waxaad ka dhawaajisa sirta oo ah qofkii ku jiray abuse-ka amba nin ha ahaado amba naag ha ahaado gaar ahaan dumarka inay cid ay ku aaminto dhibaatadii ay weydo oo istiraada haddii aad u tagto heblaayo waa lagugu sii xamano waa lasii sheegi haddaad hebel kaloo u sheegto waxaa laga yaabaa in waddankiiba la geeyo oo reerkoodii loo geeyo ambaba istiraada dowladda loo geyno
haddii tusaale ahaan oo kale kiisaskan waa arkay waxaa ka mid ahaa hooyooyin qarsaday iyada oo aabuhu uu gacanyada u qaaday isla markaana ilmaha u qaadayo istiri haddii aad sheegto waxaa la odhan doonaa ilmihiiyuu dilaya ayay ku eegaysa markaa ilmahaagaad waayi doontaa marka arrinta inuu qofku hadlo waxa u sahlaysa in sirtiisii la ilaaliyo saad hore u sheegtay taa maxaad ka odhan lahayd confidentiality-ga qofka in uu sirta sheegan karo dadkeenu noqdaan kuwa haya sirtii wax kasta hadday dhacayaan aan qofkii garanaysaa siiyo nabadgeliyo maskaxeed oo idhaahda waxaagi way ku dhowran yihiin haddaad ii sheegto walaal horta istaahila waxyaaba badanoo waxa jira ay tahay in diinta laga taga maaha waa in dhaqanka qaar laga taga sax dhaqamada marka in laga taga ee la caadaystay waxa ka mid ah waxaa la yidhi heblaayo nabar baa ku yaalayo waxaa la yidhi dowladdii baa ugu yaadhay waxaa la yidhi waxa weeye waxyaaba badan oo dumarka laftooda damage garaynayaa jira oo community-ga iyo dee bulshadu ka imanaya maxay markaa servisyadii ay caawiyaan dadkii haddiiba uu qofkani aanu hadli karaynin because wuxuu ka baqanayaa qofkaa u turjumay inuu sheego qofkaa u turjumay walaalkii inuu sheego heblaayan maanta usoo turjumay wallahi wejigeedii blue iyo black bay ahayd oo kiibaa garaacay waana lays wada garanaya dadkii village bay wada joogaan marka waxa weeyaan in laga fikiro marka qofka in la siiyo la support gareeyo qofka la caawiyo maaha in inta lasoo hor istaago gurigiisa lagu mudaharaado la yidhaahdo waa ka soo baxinanta laakiin in la yidhaahdo waanu ku caawinayna laakiin in aan laga sii hadhadlinoo maaragtay aan la odhan heblaaya sidan iyo heblaaya sidana horta tii xan la odhan jiray waa la yara caadaystay baan malaynayayo xantina imka social media taallaayo xitaa qudheeda dee messenger baa xitaa laysugu diraya way casriyowday marka qofkii oo dhibaataysan wuxuu ka baqanayaa haddii la ogaado berigi hore dadku waxay ka baqan jireenun adeerka iyo walaaladayba ninka igu celinayaba oo kale may ahayn xantu sidan imika qurba especially marka qurbaa la joogo in ixtiraamka qofka aad siinaysaa haddaad qofka aad wixiisu confidential aad ka dhigto ood intaad u timaado support garayso oonad kasii hadhadlin xitaa haddaad u turjuntay oonad kasii hadhadlin servisyadii caawin lahaa ilmaha laga qaadaynin gabadhaas ama ninka especially weliba dumarka iyagu way ku shaqeeyaan confidentiality la-aantu waxay ka timaadaa bulshadeena ayay badan ka timaadaa waa la dhaariyaa dadka turjuma dad badanoo turjumaa jira oo imika kolley dhegeysanayo qudhooda dee dad si fiican u turjumaya ah oo aan ku jirin groupkaasta aan ka hadlayo kale laakiin generally dadku waxay ka baqanayaan haddaan imika u tago dowladda qofkaas imika anigoo kale aan ahaado xildhibaan af soomaali ku hadlayo oo soomaaliyada laakiin markay qofku ii yimaado waxaan u dhaarsannahay sida looyaradu u dhaarsan yihiin si kasii daran because looyarku uu shaqaysanaya annagu dowlad baan u shaqaynaynaa waxaanaan u shaqaynaynaa annagu bulshadii marka qofka markaad ka hadasho haddii intaa in leego line meel laba ka soo baxo magacaagiina ku jiro way kula go'aysaa maxkamadaha lagu saaraya si xun baana lagula dhaqmaya oo waxaan ka wada yacni sharcigaa si fiican kuu qabanaya marka in qof walba uu ogaado servisyada ayaa confidentiality-ga taallaa laakiin horta ha soo dhaafto bulshada oo bulshadu ha iska dhaadhiciso oo ha weligeen yaa la hembayeenaanuun waa lagu soo celceliya ereygan confidentiality-ga wallahi marka research la samaynayo ethicalka ugu weyn ee aanu sign garaynaa waxay tahay markuu researchku yahay communitiyada ethnic minoritieska especially soomaalida aniga da xaggay goor waxay dadku ka warwaraana yidhaahdaan consent formkana saxeex wax walba waa confidential af soomaali waa inaan ku turjunaa waa inaanu deedna literally inta la hor fadhiista la yidhahdaa qof arkaya ma jiro researchkayga taasoo imagine qofka domestic violence-ka ka hadlaya waa in dadki wax kasta ka saxeexdo kulli bulshada uu kusoo baxdaa marka anigu waxaan dadka ku waanin lahaa dadku uma imanayaan inay la caawiyo haddii aan la joojinin waxaan maaragtay grape fineka iyo community-ga iskula wareega xanta la caadaystay oo kale dad badan bay waxyeelaynaysaa caruurina ku jirto aad iyo aad haddii yani arrinta sirtu waa arrin haddii la israada ka hadla aan laga hadli karin oo runtii aad iyo aad u muhiim ah oo nafna badbaadin karta haddii qurbo la joogo caruur la qaadan lahaa badbaadin karta
hooyo isku buuqi lahayd badbaadin karta xataa iska daa in hooyada la badbaadiyo oo sirteeda la hayo oo la ilaaliyo waxa dhacda hooyadii markay isku buuqdo inay ka baqato inay u tagto dhakhtarka maskaxda ama psychologist-kaba xataa xataa haddii u tagtana ay ka baqato ay sii qariso in loo soo qoray dawada depressionka amba dawooyinka dejiyaha ah ee la midka ah marka waxa weeyaan runtii bulshadeenoo dhan ma odhan karno laakiin in badan oo ka mid ah deganaanshiyaha maskaxda qofka bini'aadanka ah amni kuma helayo oo amba lagu xamanaya amba lagu caayaya arrin kaloo iyada maskaxdayda kusoo dhacday baa jirta hadda oo aan ahayn domestic laakiin ah caruurta disability-ga qaba amba aan xataa aan qabin disability aad u weyn laakiin tusaale ahaan oo kale uu ku adag yahay waxbarashadu ku adag tahay oo u baahan special in loo caawiyo iskuulka iyo ama ardayda waan la shaqeeyaa in badan baan la shaqeeyaa daatana waxaan na soo maraa waalid aan ku nidhaahno ilmahaagani wuxuu u baahan yahay caawimaad gaara in la geeyo iskuul gaara oo macalinku 6 arday ka badan amba 4 arday ka badan aan waxbarahayn haddii halkan uu sii joogo wuu ka harayaa fasalkiisii dhibaato badanna ma qabo ilmahaagu uu dabeetana waalidkaasi ku dhaarto uu ku dagaalamo uu ku adkaysto ma ilmahayga ayaa leedihiin waxbaa u dhiman ilmahayga ayaa leedihiin waa handicap ma tegayo oo dabeetana yacni ay adkaatay in laga dhaadhiciyo ilmahaaga halkan hadduu joogo yacni sanad ka dambaysa waxbarashadu way ku adkaanaysaa uu kasii dhacaya uu ka harayaa hadhow jaamacad ma tegayo riyadu lahaa ma gaadhayo waalidkaana wuxuu ka baqanayaa oo uu mataqaana dabada kasoo geejinaya dadkiibaa ka dambeeya oo dhanay heblaaye inankeeda halkaasaa lagu tuuray makii gabadhii inanka dhiman dhashaba ma gabadhii inanta waa dhashaba yacni ayadoon waxaasoo dhanba ilmuhu aanay haynin ku yara adagta waxbarashadu u baahan yahayn caawimad dheeraada waalidkaas maxaad fariin u diri lahayd maxaad ku odhan lahayd iyo bulshadaba waxaan u dir horta waxaan u malaynayaa in aduu 7 sano ka hor waxaan sameeyey research on autism-ka researchka autism-ka wuxuu ahaa inaan eegoon cabiro knowledge-ka ama de wax Soomaalidu ka taqaano autism-kuna waa spectrum marka leena waa spectrum waxay from 0 to thousands marka si loo eego ama waxa laga yaabaa ilmaha inuu autistic yahay oo uu hadalkii ka raagay ama inuu ilmahaasi ada learning disabilities waxa la yiraahdo u baahan yahay support in yaro marka caawima u baahan yahay ama u baahan yahay classka dhowrka qof joogaan si aan loo distract gareynino carruurta autistic-na dad kale way ka maskax badan yihiin oo adduun kale oo keena ka cajaa'ibsan baaba iyagu ku jiraan marka hage goor anigu mid waxaan oran lahaa research-kaygaas wuxuu ku saabsanaa knowledge-ka laakiin markaan hoos u eegay waxaa jira ilaa Mareykan ilaa Sweden ilaa Canada ilaa UK baan eegay 4 wadan ee aan literature-kooda eegay badanka waxay isugu soo biishubatay inaan horta dadku fahansanayn autism-ku waxay ta kale maantadan marka saaka waxaan la hadlayay qoladii education-ka oo research-kayga ku soo baraarugtay inta kala soo baxeen jaamacadda 7 sano kadib oo igu yeedhay inaan wax bedelka magaalada ka dhici doono lagu darayo ama laga hadli doono marka waxaan laba waxbaad weydiisay waxaan kula talin lahaa waalidka ilmaha haddii ilmahaaga la caawiyo markuu yar yahay oo haddii lagu yiraahdo ilmaha waxaan doonaynaa in caawino markuu yar yahay haddii la assess gareeyo oo la eego ilmahaasi tacliintiisii halkuu doonay uu ka gaarayaa carruurtii la socialize gareeyay leeka noloshiisa dee caadi bay ahayd waa caadi leen wax abnormal la yiraahdaa ma jiro dadku handicap iyo normal waxbay ku hadlaa abnormal waxbay yiraahdaan qof normal 100% horta ma jiro qofka autistic la leeyahay waa abnormal horta taasi waa inay daaqada ka baxdaa bulsho weyn anigu leeyahay ta kale aan leehayna waxa weeye waalidka ogow in ilmahaaga assessment loo sameeyo la eego sida kaliya waxbarashadiisii iyo lifekiisa kale future-kuba ay ahaanaysa waxa weeye carruurta iskuulka iskama tagto oo wax ma soo qorqorto waxay bartaan teamwork waxay bartaan negotiation waxay bartaan sida maaragtay dadka loo dhageysto waxyaabo badan waxay naga maqan yihiin 8 iyo barka ilaa 3 iyo barka
intaas carruurta inagu lama joogno wixii la barayay ee adduunka loogu sii diyaarinayay ku noolaanayaan insha allah ayay kasoo baranayaan iskuulkii oo macallimiinta isbedelaysa oo dad dedicated baa jooga marka waxaan ku boorin lahaa oo ku really ku adkeyn lahaa waalidka inay ogolaadaan wixii dhinaca educationka iyo weliba bulshada waxa jira organizationno dee iyaguba u shaqeeya inay caawiyaan familiyada laakiin dhinaca educationka inay si fiican loo dhageysto in ilmahaaga weliba qoladeeda UK in ilmahaaga haddii lagu yiraahdo iyagu wadamada kale way jiraan annaga waxa jira waxa la yiraahdo statementkiimka lagu bedelay health and social care statementkaas waxa weeyaan wuxuu qorayaa sidii ilmahaas inta uu school age yahay iskuulka ku jiro baahidiisii oo dhan iyo sida loo dabarayo dad oo dedicated ah oo lasoo tababaray ayaa haddii ilmahaasi xaggii healthkii wax uga baahayay intuu iskuulka joogo haddana gurigii haddii ilmihii wax uga baahan yahay qolo kale gurigaba ku caawinaysaa hagii goor dadkeenuna authority-ga ayaynu ka baqana waxaan u malaynaya waxda historygeeniya weeyaan iyo meelihii qof waliba ka soo baxay marka waxa authority-ga baa laga baqanaya haddii maaragtay authority-ga laga baqanayo waxaan oo dhan may dhacaan marka waxaan oran lahaa horta maskaxdeena u fura ilmaha dad doonaysa in la caawiyo macalinkiisa close ku noqda wuxuu baahay weydii ogolow in ilmaha assessment laga qaado oo kalaasadaas aad sheegtay kala istaahilay la geliyo bulshooyintan waxaan leeyahay ilmaha xantiyan markii hore ka hadlayay marka waa tii ilmihii wax ka sii ahaayeen dhashay iyo waxyaabaha ilmaha marka lagu xamanayo hooyadaasi waa hooyo dhiban waayo dawaatan ilmaheediina ay label saarteen oo dee magac aad la daba socotaan ilmihiina ugu dareemaya ilma adigu ku soo koraya ka waran bulshadaadii ayaa hooyada ay murugaysan adiga dartaa murugaysan marka taa qudheedana waxyaabaha harmfulka ah ee ay community-geena iyo ama ay bulshadeenu keentay ka mid tahay taasina waxaan teen markii hore ka hadalay bay taasina la socotaa taana la joojiyo aad iyo aad waqtigii aad samaysay baaritaanka aad ku samaysay autismka wuxuu ahaa waqti aad u fog oo iska daa bulshada Soomaalida oo xataa adduunyada inteeda badan ka hadalkiisa uu ku yaraa waqtigaas maxaa kugu dhaliyay inaad samayso cilmi baarista waxa igu dhaliyay thesis-kayga oo ku soo dirayo waxa inta hore ku qoran waxa la yiraahdo positionality qofku positionku kaga jiro waa inaad marka research samaynayso qorta iyo positionality marka waxa weeyaan halka aad ka soo gasho researchkan marka mid ka mid ah positionka different waxyaabaha hadda ka hadlay positionality-ga ama halkan anigu kaga jiro iyo sababta igu kaleeday ama igu kaliftayba waxa weeyaan horta masterkayga wuxuu ahaa education wuxuu ahaa globalizing education policy and practice ayay masterkaygu ahayd laakiin thesis-kaygii ayaan ka dhigay autism because it's a global issue maaha wax uun Soomaalida u gaara laakiin marka laga hadlayo waqtigan sorry Ingiriis ku yara dhacdhacayaa laga hadlaa markay ay noqoto in laga hadlo dadka soo migration ka soo guuray ee waddanka soo diaspora degan waxyaabo badan bayna soo qaadan waxa kamid ah attitude-keeni waxa kamid ah waxyaabo badan oo sidaynu inaga aragtideeni aynu aragno waxa kamid ah in mental illness-ka aynu niraahdo qofkaas ugu waalan yahay qofkaas waxba ka siya qofkaas caadi maaha dad badan xanuunsanaya oo imika maxaa lahaday mental illness waxaynu dadka waalan u naqaanaa waa dad markoodii horeba hadday doonaan ama autistic ahaa ama Asperger's ama other maxaa lahaday spectrum kala ahaa oo hadhowtay psychosis ku dhaceen oo schizophrenia ku dhacday oo kale marka laga eego markay yaraayeen aamusnaan jiray ama ordi jiray ama maaragtay waxyaabahanka early signs-ka ah marka haddaan la caawinin baan anigu markaa u sameynayay ilmaha early iyo hadhowto waxay ku dambeynayaan waxyaaba aan maaragtay iyo service-ku waxay ugu dhaliyay service-yada magaaladan deganahay oo kaliya maha UK oo dhan waxa weeyaan waxay ka caawinayaan in aanay dad Soomaali oo badan ee autism la imaanayn laakiin ayna ogolayn in ilmi loo assess gareeyo waxa kaloo iyaduna jirtay ideadan meel walba martay la leeyahay talaalka carruurta ee MMR-ka la yiraahdo ayaa affect garanayso ilmihii autistic ka dhigaysa taa ku dheeduna annada maxaa la qayb ka mid ah bay ahayd cilmi baaridaydii waxay ugu dhaliyeen waxa weeyaan in
aynu ogaano horta maxay dadkeenani u arkaan inay tahay autismku runtii maanta marka ofisarada la hadlayay waxa jira dad kale oo wadamo kale ka yimid oo maxaa dhahday magaaladan iyo magaalooyinka kaleba degan oo aynu isku mid un ka nahay xaggan maaragta siday u arkaan autismka marka inaguna iguma koobna dad badan oo ajaaniba baa u haysta aan ogolayn in ay maxaa dhahday ilmahoodii la yidhahdo waa autistic servisyada qudhoodana ma uma furno servisyadiina dad caddaana baa sameeyey maqudhoodii dee waxaa ku jira moogtay structurally basis baa ayuu u samaysan yahay systemkii marka dee looma samaynin servicekii haddaanay dadka u imanaynin waxba lagama bedeli karo marka waxyaabahaas ay igu kalifay waanan isleeyahay aad usoo dirtid istaahil aad iyo aad baad mahadsantahay aniga lafteyga waxaan soo wetay in dadkayna dhegeysanaya oo doonayna autismka wax ka bartaan raba inay akhriyaan inaan mataqaanaa la wadaagno cilmi baadhistaada magaceeda iyo meesha laga heli karo laakiin mar haddaad iisoo dirasood mahadsan tahay waxaan soo gelin doonaa social mediahayga waan la wadaagi doonaa inta adigii anigaba igu xiran insha allah haddii aynu ku noqono arrinkii abuseka ayaa marka abuse la maqlo sa adiguba hore uga dhawaajisa dadka maskaxdooda waxaa kusoo dhacaya dumarka laakiin waxaan ognahay ragga laftigooda in mataqaana abuseka ku dhaco oo weliba iyaga si daran ugu dhaco oo ay qarsadaan oo mataqaana ay dareemaan mataqaana shame ay dareemaan oo aad iyo aad ay ugu dhibaatoodaan inagu maadaamaan qurbaha hadda joogno abusada aan aragna waxaa ka mid ah ka dhaqaalaha financial abuseka waxaa loo yaqaano oo ah ragga da'day doonaanba ha ahaadaane intoo lasoo dhoofiyo in qaarkood la abuse gareeyo in mataqaanaa kuwo soo tahriibay oo wadamada bilaa sharci ku yimi ay abuse gareeyaan dumar gursaday iyo dadyow ay u shaqeeyaanba oo waxaa jira xataa kambaniyo Soomaaliya oo shaqaalaysiya dadkaas amba wiilasha amba nimankaas amba ragga Soomaaliyeed ee bilaa sharciga ah dabeetana siya lacagaadu iyo dhibaato fara badanna u geysta waana arrin kaloo ka dhawaajid u baahan inaanu abuse-kun familka ka dhex dhicin inkastoo ka familkaan ka hadlaynay laakiin shaqada amba cidda aad u shaqaysa laftigeedu ay ku geysan karto xadgudubkaas marka arrintaa ragga iyo dhibaatooyinka noocaasa siday kula muuqataa iyada bal hadda ka waran waxay la muuqataa istaahilay marka saa eegto waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay nin iska dhig waar nin iska dhig gabadh baa ka adkaatay waxa weeyaan waa judgmentkii maaragtay sidii qofkii dee loo arkayo qofkii dhibaataysan baa isodhanaya saaxiibka ama dee u sheeg qof war maanta waxaana dakhalay waxaana maxaad baras la tahay maxaa hadduu yidhahdo wax sheego wuxuu ka baqanaya dee nin iska dhigo maaragtay waxaas qofka waxaa laga yaaba inuu sharciga hadduu nin iska dhigto tahay guriga ka tag xaguu tegi qofku hadduu wax meel u tagay marka inamo badan ayaa kolay jiro oo waxaas u qarsoon tahay iyaga qudhoodu maaha un inaynu ka hadalno dumar keliya domestic violence globally ragga iyo dumarkaba wuu ku dhacaa oo ragga weliba ragga Soomaaliyeed iyo ragga muslimka ana waxay ugu adagtahay ama ragga muslimka kaliya maaha ragga wadamada Afrikaanka ka yimid Carabta ka yimid maaragtay waxay ugu adagtahay culture-keenaba man is a man be a man taas ayaa maaragtay ayaa qudhooda ku noqotay wax la yiraahdo hindrance oo dee iyo qudhooda dib u xiraysa oo barrier ah marka way wanaagsan tahay haddii uu inaan kuula yimaado dhibaato uu haysto in la support gareeyo la caawiyo weliba ilaa xad in halkooda looga dhaqaaqo inaan aanu wada shaqeynano saaxiib nahay ayaan maalin dhaweyto la hadlayo kuli oo iyadu looyarada waxyaabahaad qabato maxaa kuugu daran waxay tiri waxa iigu daran markay tahay domestic violence xagga ninku dhacaya way adagtay sida noola hadlaa oo looyaradii dadkani waa baaristaradii waa sheegayaa maxaa dhahday kaysku markuu dee soo gaaro meel fog buu gaaray marka qof la dilay laakiin qaar badan oo aan nabarna loo geysan haddana bahdilan baa jira taa qudhoodana way wanaagsantahay in la caawiyo oo laga hadlo way tahay malaa in lagu dedicate gareeyo in discussion laga samaysto oo la eego bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka ka joogaanba inamada qurbaha soo galay in hoos loo eego iyaga qudhooda
and inamadu way adagtay inay u yimaadaan gabadhay ku raadaan caynkaasay ku dhacday inkastoo suurtagal tahay laakiin wiilasha kale ee saaxiibadii ah amba ku xeeran waxaa laga yaabaa ayaga oo caawin lahaa inaanay hoosba u eegin oonay u fiirsanin oonay is odhanba ninkaa naagta wax yeeli kartaa ama gabadha baan idhaahda ama ruuxa dumarka ah isagina aanu u sheegin maxaad kula talin lahayd asxaabta iyagu qofka marka dhibaatadaas oo kale ay ku dhacday amba dhibaatadaas oo kale ay haysato ayaa laga yaabaa inuu u fiirsado qofka laakiin kuwa waddanka si fiican ugu nool amba noloshooda iyagu damaanad qaadi kara oo isku filan hase yeeshee wiilasha kale ee dhibaatadu haysata arkaya lagana yaabo inaan marka qaar u fiirsan iyaga maxaad odhan lahayd bal hadda sidee hoos ugu eega wiilasha kale amba yani raggaa kale hadday horta mid baynu Soomaali haddaynu nagaynu gacan furanno waxaa laga yaabaa inaan kaasoo maqaaxi soo galay oo aan waxba shaah iibsan karin oo kale in loo kaco koob shaah loo shubo dadna shaahi lala yara qosqosla siyaasadii wadankii wax lagala yara sheekaysto dadna uu qofkii halka ka dhaqaaqo markaasoo kale haddii aad ogtihiin qofkaas inuu mar walba iska hoos u yara fooraro oo aan waxba haysan oo iska gacan maran yahay badanka oo wadanka ku cusub yahay waxaan odhan lahaa hoos u eegiddu halkaa ha ka bilaabantay inamada way siin karaan laakiin dee waxay ka fikerayaan ninkan reer dhan buu ka yimid oo reer dhan buu soo dhoofay oo reer dhan buu shaqeeyayo qurbuhuna siduu ahaan jiray markan yaraay wadanka la keenay ma aha imikuu ka qaraari yahay imikuu ka xun yahay ma odhanayo dadka yaanay soo tahriibin way qof walba waxbaa keena wadanka oo xaggaa kama juj garayn karayo laakiin markaad aragtaan qof walaalkiin oo idin baahan siduu doonaba ina hebelha u ahaan jiray wadankii qurbaha marka la joogo waxa lagu kala duwan yahay ma jirto baahidu waa isku mid marka waxaan odhan lahaa hoos u eegidda inay namaduna ay hoos u eegaan dumarka ana waxaan odhan lahaa inkastoo hadda doona hadhowta lasoo shidi doono inamada dhalinyarada qof waliba qofuu dee jecel yahay buu keeno qofna dee colaad qofuu qabo wadanka ma keeno waxyaabo badan oo qurbaha yaallo oo ku adag oo dadka iska horkeenayaa jira kolley marriage counseling ma samaynayna malaynaya maanta istaahilay laakiin qofka marka wadanka la keeno wuxuu u baahan yahay maalinta u horeysa suuriyada loo guro ayaa reerahooda iyo dadkooda ugu dambaysa taa qudheedana in qofka laga daba tagaa way wanaagsan tahay oo laga warhayaa isagoo gabadhiisii reerkiisa la jooga xitaa qosheeda qofka in laga warhayo marka la arko inuu baahi leeyahayna si fiican loo halo horta waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u mataqaanaa u daran oo waxa aad uga warhaya dadyowga la shaqeeya caruurta gaar ahaan caruurta intay soo tahriibaan isku dhiiba inay yar yihiin ayagoo weli yaroo laga yaabo ugu badnaan baynu 25 sano yahay dabeetan laga yaabo inuu qof guursado uu qarsanayo runtii anigu waxaan usoo taagnaa dhibaatooyin aad iyo aad u foolxun oo wiilasha yaryar soo gaadhay iyo hablaba oo xataa iskuulka markay yimaadaan ay qaarkood ku kalifto meelaha xunxun ee la geeyo amba la dejiyo amba dadkay la noolaadaan inay balwad yeeshaan dabeetana balwaddii ay qarsadeen dabeetana dadkii Soomaalidaha ay ka fogaadeen oo meel xun kasii dhaceen oo markii iskuulka yimaadaan xataa macallimiinta Soomaalida laga yaabo inay ka cararaan oo iska ilaaliyaan marka horta arrintii hore aan ka soo hadalnay unbay daba tegaysaa ayay ahayd in qofkii wax laga sheego oo israahdo xataa faamilkaagii wadankii joogaa loo sheegi doonaa u dabeetana ilmihii asagoon mataqaanaa wadankii ku cusub luuqadii garanayn waxba garanahayn oo aad iyo aad usii dhibaatoobo adiguna waad sheegto wax laga yaabaa in lacag la siiyo oo guriga laydha xataa kaalay nala deg oo mataqaanaa dhanka adduunyada amba shayada lacag bahaata amba dhar bahaate la siiyo laakiin aan lays odhan qofkaasi muxuu ku sugan yahay oo aan mataqaanaa maskaxda caafimaadka maskaxda iyo abuse-ku aynu inta badan waxaad moodaa inaynu ilduufno oo qofka in lacag badan loo uruuriyo laga dhargiyey ay ka fududahay in laydhaa maxaad ku sugan tahay maxaad dareemaysaa maxaa hurdo la-aanta kugu riday maxaad balwadda ku baray sidee tahay marka waa arrin aad mooda in inagu adag tahay in jeebka gacanta gelina inooga fududahay waad moodaa
ayo markuu qof yimaado waxaa lagu odhanayaa in hebel baa yimid oo dadna magaaladii baa gacanta la marinayaa qofka waxaa laga yaabaa 3 bilood kadib inuu shaqo haynin gabadhii kala tegeen hadduu yar yahayna inuu meelihiisa iska wareegayo inuu dhalinyaro la degan yahay in uu sidaad sheegtay dadka ka cararayo horta run marka la sheego nin xaaskiisii u yimid oo fiisa u dirtay odhan kari maayo soo dhoofisay soo guursatay waa erayo xigxin banu malayn laakiin xaaskiisii u yimid waxa la isleeyahay halkaas isku asturan yihiin haddana qof Soomaalida qof qadeeyay way qada siiyaan no dad waxa laga yaabaa in qofka lacag loo ururiyo oo la yiraahdo in kiiba yimid inaga dhisay inta oo wuxuu ururiyo waxa laga yaabaa inuu kaasi beritoole uu dabada ku dambeeyo oo aanu maaragtay halkaas uu lagaga haray way laakiin dhalinyarada kaligood timaada qudhooda hoos eegid bay u baahan yihiin fara badan markay kaligood yimaadaan haddayna dee qof ay yimaadeen jirin ama dee caylada ay faamiligoodii aabihii hooyadii iyo nayo imanayeen run marka la sheego qurbaha berigii hore dadka airportka intaan laysii kaxaysan jiro laysoo kaxayn jiro marka yaraa airportka dad kasoo qaadi jirnay markaa imanayo waxaan ka hadlaya waqtigaas iminkana cidina cid albaabka ma furto waa iyadoo abad odhanaysa albaabka marka la karo adaaba yaabaya marka qurbo siduu ahaan jiray maaha waxyaaba badan dhalinyarada imika soo galaysaa caawimaad badan bay u baahan yihiin runtii marka saas waaye haddii aan qodob kale ku boodo oo mataqaanaa in aan la xiriirin mawduuca lagrad muddooyin ku xasuusinayo muddooyinkii dambe waxaan maqlaynay waddanka in hablo yaryar oo caruuroo yaryar lagu kufsanayay kuwa inuu anigu waxaan aaminsanay istaahil ahaan shakhsi ahaan waa wax horta aad iyo aad looga xumaado fool xun xag alle iyo xag bili aadanba wax aad iyo aad u fool xun qaarna waaba la gogooyo waa la dilay laakiin waxaan aaminsanahay kuwa waxaa loo maqlay kaysaskooga caruur bay haayeen oo jirka iyo damiirka qof walba uu ka gubanayay waxaa jira hablo dhalinyaro ah amba dumarka baan nidhaahne gaar ahaan hablaha dhalinyarada ah intoo la kufsado amba iyadoo aroos ka timi amba iyadoo qofkii aamintay amba sidii doontaba ha u dhacdee waddanka dhexdiisa in lagu kufsado oo dabeetna qofkii kufsaday iska daa in mataqaanaa sharciga la horgeeye ay aamusto iyadoo sharafteeda dhowrayso isla yaanad ceeboobi oo ceebtii qarsataa oo iyadii dabeetana ay maskaxdeedii iyo caafimaadkeediiba ay halkaa ku waxyeeloobaan arrintaas sidaad u aragtaa mar labaad waxay kusoo noqonaysaa arrintii is-aaminaada iyo confidentialityga in qofku informationkiisi la ilaaliyo si ciddii kale loo mataqaanaaye sharciga loola tiigsado horta marka saa u eegay waxaan arkayna dadka badanka jecel yihiin inay ka hadlaan siyaasad aad iyo aad siyaasadana dadkan siyaasadda ka hadlaya oo dadka publica ah ee dadkii siyaasadda galay ayay tahay inay horta waxyaabahan ka hortagaan waddan waliba imika wuxuu marayaa elections ama Somaliland ha ahaato Puntland ama Soomaaliya ha ahaato Kenya Ethiopia dhinaceena jiideena Djibouti marka meelaha intaa waxaan uga dan leeyahay waa intii dee aynu afka ku wada hadlaynay aynu walaala ahayn dee aynu xaggaas ugu baalaynoo kala qaybsanaya waxa la caadaystay in qofku markuu kursiga ku fadhiistay imika aniga xil bay saaran anugu marka waxaan yara cambaarayn maayo waxaan la hadlayaa dadka u soo fadhiistay inay siyaasad u soo fadhiistaan maanta haddii ay ka dhacday xaafadayda ama meesha layga soo doortay haddii ka dhacday in ilmo yar lagu faraxumeeyey dabadda hadalka u soo baxo qofka u horeeya ee albaabka reerka taagan waa aniga haddii qof mindi la geliyo ama xabada ku dhacdo ama laysku dilo qofka u horeeya ee inta lala soo hadlo anigii ofisaradan soo istaagana waa aniga xaafadaydii kuwa kalena way la mid dhammaantood meel kasta ka joogaan UK waxaan uga gol leeyahay waxa weeyaan haddii aan waxyaabahan horta laga hortagin oo aan sharciyo laga dejinin sharciyo maaragtay dawliya sharciyo ku saabsan sharciga dadka lala tiigsada ah haddii aan example laga samaynin dadka qaar waxaa sameeyey hablahan iyo inamadaniba way qarsanayaan inankii waxaa geystay wabaraada waxaad ku qarsataa wuu ka qarsaa isagoo meel xun buu ku dambeynaya waxaan ka hadlaynay hablaha tacadiga lagu hayo tusaale ahaan inanta marka haddii la kufsado oo kale wadankii inaanay sheegin ay qarsato
dabeetana dhibaatooyinka soo gaadhaya xagga caafimaad xagga depressionka cayda ciday u sheegtay inaana jirin arrinta haraasmanka kale ee suuqa lagu haraas garaynayo sir baanu kaa haynaa maalin baanu ku sawirnay message baad noo soo dirtay waxyaabahaasoo kale hablaha ay ku dhaca tusaale ahaan inanta la leeyahay maanta waxbaa lagaa duuba waxbaa lagaa hayaa amba video baa lagaa duubay amba cod baa lagaa duubay amba kamarad baa lagaa duubay lagu mataqaanaa maskax ahaan iyo jir ahaanba lagu gumaysanayo maxaad odhan lahayd hablahaas horta wax walba waxay ka bilaabmaan taxadir qof waliba maaha friendkaaga qof walibana daacad maaha marka xagga dee la eego dhibaatooyinka imika harassmentka marka laga hadlayo safety dumarka safetygooda maalin dhaweyta annaga magaaladeedan waxaanu baas garayn emotion in wadooyinka iyagii streedyada iyadu ay safe u ahaadaan dumarka ama dumarka madow siiba iyo dee dumarka guud ahaan kos gabadh baa la dilay baag iska maraysa 2 hablood baa baag lagu dilay iyagana magaaladeeda mahayde London deedna council kasta wuxuu sharci ka dhigay in dumarku ay noqdo badbaadada dumarka carruurta kaliya maaha badbaadada dumarka badbaadooyinka dumarka waxaa ka mid ah in wacyigelin fara badan oo ku saabsan xagga social media sababtana waxa weeyaan in qof ay la sheekaysanayaan oo kale ayaa dadana iyagoo iska tima qaawan oo aan waxba sameynaynin oo FaceTime kula hadlaya ayay inaga dhaqankeennii marka la eego intii baa la duubanaya inanay saaxiib yihiin baa hadday doonto iyadoo sarta iska jiifta la hadlaysa ayaa laga dhigaya inaad nin la hadlaysiin sarta marka waxyaabahaasoo dhan ayaa iyaguna wanaagsan inay habluhu ka taxadiraan because waxaa laga yaabaaba inuuna inanba ahayn qofka waxaa ama ka duubay FaceTime gareeyeen ama ay yihiin dee qof ay saxaab yihiin oo qof dumaraba xitaa horta taxadirku waa waxyaabaha keliya markaynu yarnahay hadhicin hajabinta layna leeyahay taxadirku waa wax laynagu soo koriyey iyadoo sidaa ta haddana dee diinina xidhaynu leenahay iyo dhaqan intiisa wanaagsani ay wax ka macaani aanu jirin oo ixtiraam yar iyo xushmad badani ku jirto iyagana dee isku mid maaha marka waxaan ku odhan lahaa horta hablaha taxadira dadkaad la hadlaysaan xitaa hadday habla yihiin asxaabtiina dee ma uun odhan karno meel qoray ka dhacdaayo waxay noqotay wax spectrum oo meelo badan ka dhacaysa ilaa Kenya oo adiga arkay hablaha la afduubayo waxaad ka dhawaajisay imika arrinta badbaadada dumarka iyo carruurta marka tusaale ahaan gabadha telefoon laga duubaya amba codkeeda la duuba amba iyadoo inan saaxiibadeeda la hadlaysa oo sariirtii iska jiifta hadhow tolo lagu dulduubaya oo la nin bay la hadlaysay siyaasiyiinta usoo jeedisay inay ka sameeyaan xeer laakiin mid kale anu ku dari lahaa runtii waxaa jira hablo badan gurubyo habla ah oo ka shaqeeya wadankii iyo halkanba oo arrimaha qoyska iyo dhalinyarada iyo hay-adahaba la shaqeeya marka anigu waxaan odhan lahaa haddii xataa guddi hablaa la iska soo saaro oo hablahaas ay email u diri karaan amba telefoon u diri karaan amba ay la hadli karaan amba ay dhibaatadoodii u sheegan karaan maadaama dadkii ka baqanayaan inay ceebeeyaan amba faamilkii uu ku xanaaqo yacni waxay u baahan yihiin meel ay sirtoodii ku aaminaan si ay maskaxdoodii naftoodii u nafisto taa laftigeedu way fiicnaan lahayd arrinta kaloo xalka noqon kartaa waxa weeyaan inay hablihii ay ku baraarugsanaadaan inay bartaan programyada safetygeed telefoonka lagu shubto oo haddii lagaa duubayo wax mataqaana ku dareensiinaya oo marar badan protection ku sameynaya taa laftigeedu way fiicnaan lahayd ay la tahay horta hay-adaha hablaha u hadla iyo dumarkaba anigoo dee aan kala garanayno wadamada kale waxaa ka jira wax wanaagsan kuwa ama la maalgeliyo ama la sida kaleete loo resourcesku maaha uun fandhin iyo lacag resourcesku waxa weeyaan in platform ama spacekii meesha ay ku miidgaraynayaan oo kale la siiyo in la siiyo meel safe ah marka lagu leeyahay safe space ayaynu u baahanay waxa weeyaan meel ay ku hadli karaan meel ay isku weydaarsan karaan aqoontii waxay haystaan meel ay odhan karaan waxaasa iga maqan markaynu sidaa u eegno gurubadaas waxay u baahan yihiin horta in iyaga qudhooda lasoo caawiyo kolle way dhisan yihiin oo odhan maayo in la dhiso laakiin wixii ka maqan in horta dee dowladda iyo xisbiyadan maxay intaasoo qof u soo baxeen inay ka fekeraan de berritana haddana waxaad galaysaa election kale dadkii maxaad u qabateen marka anigu waxaan odhan lahaa in kuwaana la caawiyo walaal voluntary sector lagama maarmo hay-adaha
bulshada u shaqeeya lagama maarmo marka waana la isla shaqeeyaa anagu waan isla shaqeynaa haddii aan ka hadlayo wax domestic violence waxaynu early aynu ka hadlaynayn markii hore oo domestic abuse-ka waxa laga yaabaa inaanu referralka u dirno qolo hay'ada oo gaar u ah oo aan dawladii ahayn oo dawladdu lacag ku siiso markaas qolooyinkaas saas loo support garay wallahi waa runtaa ها معناها إن لبابا ويكينسا waxa keenaysa iyadii aan wacyi gelin jirin ayadii oo ma taqaana aan laga hadal inta badan qofku khalad yar oo inantu khalad yar markii sameeysan ba telefoon ay mar dirtay ayaa wax laga yaabaa nolosheedii dhan la haystay inay u noqoto social media in badan baan ka aragnay lacagta keen waxa bixi telefoonkii baan in fiidiyoogii baan diraya en fiidiyo yar oo laga qaado mid kale lagu dulduubay يعني marka laga tago intay dadku arkayaan ee ah inantiin la caayayaan xumaan laga sheegayo depressionka iyo xanuunka maskaxeed iyo caafimaad darrada ay ku keenaysaa inantaas yani hadhow toole waa dhibaato aan la arkahayn oo laakiin ku dhacaysa marka taasa u baahan laftigeeda in la sameeyo safe space na loo sameeyo en hablahana lagu dhiirigeliyo inay bartaan safety-gooda inay ilaaliyaan oo telefoonkooda ay ku shubaan programo oo maalin waxaan arkay inaan ka hadlaysay inaanay aqoon u lahayn markii hore telefoonkeeda haddii emailka google-ka oo kale uu qof geliyo inuu qofkaasi arki karo sawiradeedii ya marka inta la sameynayo youtube ka hadlaya siyaasadda waxa ka qiimo badan in la sameeyo haddii qaarna way jiraan youtube ka hadlaya saasa loo gashada amba adduunyada maanta dad ingiriisi ku google garayso sidee telefoonka loo baktiya waad helaysaa macna wad marka informationada noocaas laftigeeda inaguma badna dadku waxa laga yaabaa in maanta dhan riwaayad duubaan amba ay wax ka hadlaya siyaasad duubaan laakiin informationka qofka sharaftiisa badbaadinaya aan laba duubinba ama la isku hawlin waarun marka maalin dhawaan ka hadlayay councilka maalintaas aanu motionka aanu baasgareynayna anigu amendment baan ku daray waxaan ku darayna waxay ahayd in dumarka madow xagga rayska in la eego marka dadka ajaanibta dumarka ajaanibta in iyagana si gaara maxaa la safety looga qayb geliyo wacyigelinteeda ay leedahay waxa laga yaabaa community-yada ay markay ku noqdaan ay yiraahdaan ninba maanta waxay igu yiri oo gaari la soo daba galay inay yiraahdaan markaas oo kama soo badbaadin inta la yiraahdo marka speech-kayga waxa kamid ahayd waxaan sitaa alarm صح أنا قفنا surprise مو نقولنا ستوريب على كوار waayo hadday goor dambe tahay oo habeenimo tahay oo councilka ka soo baxnayo aan meel madow soo marayo qaylada haddaan shido xaafadoo dhan baa soo baxaysa anaana gacanta waa wax yaro inta leeg anaana gacanta ku sifay booliiskan iskiyey marka waxa jira waxyaabo badan oo ay samayn karaan haddana markaad eegtid labadii waddo waxay kaliya kan waa la garanaya inuu yahay reebalaam laakiin wixii kale kaasoo kale dib waddanka lama garanayo waxa jira sida imkaad sheegtay in anigu waxaan qabaa in wacyigelinta badani sababtoo ah wacyigelinta halkii laga samayn lahaa waxyaabaha bulshada saameeya siyaasad baa ka buuxda social media intaa in leeg haddii la samayn lahaa wacyigelinta safetyga hablaha dumarka dadka maxaa dhahdaayey disableka ah iyo dhalinyarada tahriibaysa waxa loo qabanayo waxyaabo badan baa kasoo bixi lahaa waanan hubaayo nimanka dee kulli waxyaabo badan la sameeyo taagudheeda malihi ma samaysaan laakiin waaran barnaamijkeena maanta in badan waxaan kaga hadalnay wacyigelinta waxaan kaga hadalnay domestic abuse-ka waqti aad iyo aad u fara badanna waad mahadsan tahay istaahil thank you